Senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo laba jeer Soomaaliya ka soo noqday ra'iisul wasaare ayaa waxa uu ka digay heshiis uu sheegay in uu u dhaxeeyo Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid oo qoraal soo dhigay bartiisa ayaa waxa uu sheegay in uu heshiiskan oo ah amni iyo difaac mid u baahan ay arintaasi khatar ku keeni karto ayna u baahan tahay fiiro gaar ah. Heshiiska la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa amniga iyo difaaca oo dhexmaraya Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa waxa uu noqon karaa arin khatar keeni karta oo fiiro gaar ah u baahan sababta oo ahna adeegsiga aanan dhamaadka lahayn ee waaxda amniga waxa ay noqonaysaa walaac daran ayuu yiri Senator Cumar. Sidoo kale waxa uu sheegay Senator Cumar in ay noqonayso walaac aad u daran haddii dawladda waqtigeedu dhamaaday isku daydo in ay heshiis noocaas oo kala ah la saxiixdo Addis Ababa. Hadalka Senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii la soo dhaafay warar ka soo baxayay ay sheegayeen in uu jiro shir Addis Ababa ku dhex mari doona madaxweynaha Eritrea, ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Deeqa Jaamac Maxamed, Deeqa Degan, Soyaal TV, magaalada Caabud Waaq.